talada laga tuuray taliskii dargiga ayaa si gooni waxay uga dhacayaan goobo kala duwan oo kamid ah deegaanka Soomaalida Ethobia hadaba mid kamid ah kulamadaas ayaa waxay ka dhacday xarunta kulliyadda farsamada gacanta xirfadaha ee magaalada Jigjiga waxaana kulankan lagu diyaar garoobayo xuska munaasabada 20 Gabood oo si guud ahaan ah bir uga dhici doonta deegaanka Soomaalida Ethobia gobolada iyo degmooyinka ka kooban yahay ayaa kulankaas waxa ka hadlay maarayaha kulliyadda farsamada gacanta xirfadaha ee magaalada Jigjiga mudane Umar Daahir Xoosha waxa kale oo isna ka hadlay kulankan u diyaar garooga ah madaxa xafiiska tiifeedka mudane Maxamed Afaatax Maxamed halgankii ay qaadeen 1983 taariikhda Ethobia waxay ku guuleysteen inay ridaan xukunkii kaligitaliskii u dambeeyay ee dargiga 1983 Gabood 20keedii inaynu maanta halkan ku xusno haddana wadankeenu tubta oo imika lugta saaray oo ah midda ay ka dhalatay kulliyadan imika aynu fadhino laga bilaabo guud ahaan kililkeena oo dawladda deegaanka sharci ilaalin sharci dejin iyo golaha fulinta ee ay leeyihiin dawlad kasta iyo nidaam kasta afkeena ayaynu wax ku qornaa maxkamadaha iyo cadaaladdu afkeena ayaynu isticmaalnaa waxaana jira ilaa iyo 1 milyan in ka badan oo dhalinyaro arday ah inay maanta ku jiraan Soomaalida geeska Afrika joogta dadka ugu badan ee iskuulka ku jira maanta jaamacadaha iyo kolleejyada iyo KG laga soo bilaabo ilaa iyo jaamacadaha sare ilaa 1 milyan dad ka badan ayaad ogtiin maanta inay ku jiraan tacliinta sare intay socotay kulankan u diyaar garooga ayaa halka waxa lagu soo bandhigay riwaayado iyo heeso ka turjumaya waxyeeladii uu taliskii dargiga u geysan jiray shacab ku dhaqan dalkan Ethobia gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaana madasha ku soo bandhigay kooxda fanaaniinta ee dhaqanka ee Ilaysbaan ee deegaanka Soomaalida Ethobia waa kuwan qaar kamid ah shaqaalaha macallimiinta iyo ardayda ka howlgala kulliyadda tababarka farsamada gacanta xirfadaha ee magaalada Jigjiga oo ka warbixinaya u diyaar garooga xuska munaasabada 20 Gabood oo dhacaysa maalinta bari ah waxaan halkan ku dabaaldegayna farxadeydana lama soo koobi karo deynay aad baan ugu faraxsanahay inaan 20 Gabood sida iyo si ka fiican baan u xusnaa haduu alla yiraahdo waa soo koobi karo dareenkayga farxadeed hadii la eego aad iyo aad baan ay shucuurtaydu u gacsanay aad iyo aad marka horumar la taaban karo hortayeen aad iyo aad uga faa'iideysanay horumarkaasna waxa kamid ah horta imika inay aad iyo aad u bateen iskuuladana sidoo kale primary school ilaa high school